hadafkaasi dadka muslimka qofku markuu muslim noqdo waa yool ama gool uu raadcaynayo laakiin noloshu ahdaaf yaryaro ka sokaysay leedahay waxaa la rabaa ahdaafta yaryara soke inay u khidmayso hadafka weyn yacni wax kasta oo hadafkaa weyn kaa weecinaya waa inuu noqdaa waxaan macno badan agtaada ka samaynaynin maalan inaad xoogsato oo shaqaysatid oo hanti yeelatid waa mubaax waa wax bannaan noloshana waa lagaa rabaa laakiin hadday hadafka ku weydaarinayaan ka warran ilaahay kuwa qur-aanka ku ammaanay wuxuu leeyahay maxay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami الصalaati wa iitaa'i الzakaah koox baa ilaahay ammaanay kooxdaa la ammaanay wax lagu tilmaamay ragannimo rijaal weeyaan baa la yidhi والرجال maxay ku sifooba laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah baaca mushtarka iyo lacagta kasbashadeedu kama weeciso ma ilowsiiso hadafkii weynaa oo ah inuu salaad oogo inuu zako la yimaado inuu ilaahay caabudo inuu xuso in aakhiro hortiisa ay taallo yakhaafuuna rabbahum inay rabbigood ka cabsanayaan maalin quluubta ay gagadoomayso idan hadafka weyni waxaan soko oo dhammi dabaab kuma ridaan ceeryaan maaha kaa qarin karta mushkiladda dadka haysata ugu badani waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay haddaad salaadda dhammaysaan maxaa layna yidhi fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah salaaddu markaad dhammaysataan dhulka ku faafo ilaahay arsaaqdiisa raadsadaa la yidhi واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لكن دول كفاف كي التجارة دي وحنا هدي هدف كوين قلضيان إيجا لغو هرتقية ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحبدا مركا مانت أهداف تواوين تيدتكو إلا بان وحي يريرو سكينكو مشغولا وحلقيا بان انت الساعدودات كو بحسي سكول كيات ساقدين oo ka waran yawmul qiyaamah haddaad saaqido maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waxa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin oo ka waran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan la isu keeno haddaad ceebowdo yawma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya reer nebi aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceebowdo waxa laga yaabaa inaad sileedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka waran maalinta 50,000 oo sannadooda noloshaynu joogno dhammo waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka waran maalin 50,000 oo sannadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba la isla gaadhin kaana 50,000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin 50,000 oo sannadooda 50,000 oo sannadood baa taagnaanaysa 50,000 oo sannadood baa dadkan la xisaabaya 50,000 oo sannadood baa cadceeddu halkan taagan tahay 50,000 oo sannadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50,000 oo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50,000 oo sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiis madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyaysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhee tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka waran 50,000 oo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabbayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaatiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke
waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiyo heblaaya kolayga ku riday kubad hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barrul ammaan xagee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaani dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhankuu kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daarandhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebelunbaa maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaybana asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciiddaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufraddan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahy qaarna naar bay u tahy laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xaggay ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed aad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiye baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwa islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaana wa tacaala